90 dagaal baa dhacay ama wixii ka horeeyay marka qofka ugu horeeyay oran kareynaba wax weyn waalidiinteena baa wali iyaga yaabana bachelor ama master ba qaadan marka inanka encourage ma heli karaya oo aqoon ku raadiyo ama ma ogtahay kaloo aad iyo aad aan ula yaabay oo dhacday hadda ka horna aan arkay dadku xoggiisna ay yihiin wax laga cajiiban ay tahay tirstina ah waxa kamid ah waxa waaye dadka Soomaaliyeed wadankan joogan boqolkiiba 90 aan dhaho waxay ku diiwaan gashan yihiin ma qoro ma akhriyo ma qorno ma akhriyo sababtaasna waxa keenay waxa waa qalad anaga aan iska dhaadhicinay waa sisterna been aan isku sheegnaa dad badan oo wadankan soo galo aan waxaan ogaa hadda heer academic ah jaamici ah ee ku diiwaan gashan wadanka ma qoro ma akhriyo dadka markaa weydiiso su'aasha aad tiraahdo maxaa kuu kalifay inaad tiraahdo ma qoro ma akhriyo wuxuu ku leeyahay dad ay ula taliyay oo waxay ugu la taliyeen waxaad tiraahdaa ma qoro oo ma akhriyo oo waayo markaa maxaa ii hagaagayo waxa ku hagaagayo su'aalaha ka yaraanayo hal kale uma hayaan marka ilaahay dukuroon marka arinta iyada ana waa arin aad iyo aad noo dhaawacday oo runtii walaalayaal yaa lagu la talin dadka haddii macnaha wax aadan ogeyn ha kula talin haddii qofka advice aad siinayso wax fiican oo advice oo si fiican oo qofka wax u taraydo si laakiin wax aadan ogeyn iyo wax oo macnaha keenayo oo waxba mataqaanaa hay'ada aan qofka uu haka tuurayo ha kula talin marka qolooyinka imaanaya wadamada soo gelayana hadday wax bartaan wax barasho ha sheegtaan shahaada hadaadan haysan muhiim maaha shahaada adoon haysan wax barashadiisa aa wadato waxay ku xirnaanay luqadda inaad kala argareedeen noqonaya luqadda markaad kala argareedo imtixaamaada jiro afka la qaado lacala imtixaankan ay dhahaan oo kale Bergen test oo kale qofka markuu galo waa midka u dambeeyay qofka markuu heer jaamacad aadayo ama heer college aadayo imtixaanka laga qaado waa midkaas aad macnaha balansanay marka afka kala argareedo ka hadaa ku baasto waa lagu ogolyahay waxbar oo macnaha inaad waxbarato shahaadada naftigeeda haday ka maqan tahay wadanka jirto oo heer jaamacad aad ahayd ama dikal heer secondary aad ahayd muhiim maaha in macnaha shahaada la'aan aad mataqaanaa hay'ada shahaada la'aanta waa gudbi kartaa aqoonta aad wadato laakiin waxa jiro xoogaa tilaabooyin laga rabo process la rabo inaad marto wadan gudihiisa marayda hadaa martana waxbarashada waa sii wada kartaa marka waxaan dhihi lahay waxbarashada muhiim waay aad iyo aad ay muhiim u tahay midda kale wadankan anaga aan joogno maaha kaliya Norway laakiin westiga dhan North America noqoto Australia waxay noqonayaan wadamada dhan waxay aaminsan yihiin academic waay xilligan dadkan joogo macnaha xilligan joogo waxa waa dad oo heer jaamacad waay shaqo wax ka hooseeya ma jirto kan ugu yara shahaadooyin waxay iska tahay mataqaanaa hay'ada master iska tahay ma fahamti ku kale mataqaanaa marka dad waxbarasho aaminsan waay anaga marka hadaan nimid marka anagoo wax yar aad moodo ma waxbarasho la'aan nimid way nagu adkaanaysaa ula qabsano marka dhalinyarada qaarkood way dadaaleen runtii oo dad waxaa jiro dhaxda xirtay aad iyo aad u dadaalay isku dayay ogaaday systemka markay wadanka soo galeen inaan waxbarasho waxaan ahayn waxba lagu keeni karin inta dadaalay ilaa heer jaamacad gaaray oo maanta mataqaana mustawayn ka gaaro magacay noo tahay anaga Soomaali ahaan iyakana magacay u tahay aad iyo aadaan mataqaana hay'ad ugu hambalyeynana kullina waxaan ku dhiirigelinaa qof walbo in macnaha ii sheegay ay fadhi ka kacaan waxbarashada aadan dhalinyarada yararka ah baararka fadhiyo oo mataqaana hay'ad waqtiga iska dhuminaa macna darro waxaan leeyahay aad iyo aad waqti fiican oo aad iyo aad dahabi u ah ayaa dhumiyo heedin waaniya maalin walba markaan la kulmo daa'irta markaan la kulmo markasto meelaha ku badaha aan isku nimaano iyo waaniya waxaan dhaawar hay'adlisin waxbarashada waxa kaliya heer lagu gaari karo waxbarashada waa waxbarashada hal habeeyo mataqaana waxbarashadaas mataqaana hal sameeyo oo qofku waxbarasho mataqaana haduu ku noolaanayo wadanka ma kaliya wadankan xataa naftigiisa meel kasta aad joogto waxbarashada waa ku anfacaysaa marka waxbarashada waxa waaye furihii dhamaa ay nolosha waa natiijadu dhowr nooc bay noqonaysaa hadduu qofkii uu ku guulaysto ama uu ilaahay ka saaro muddada dabka loo yaqaan ee marxaladda adag ee dugsiga dhexe ee kansara ah hadduu ardaygii ka baxo wuxuu chance ama opportunity u leeyahay inuu horumar ka gaadho naftiisa mustaqbalkiisa iyo awlaadiisa uu nolol wanaagsan ku noolaado muddada soo socota ama inta ka hadhay cimrigiisa
taas waxaa tusaale u ahaa dee ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay hal yastawiyaan aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun ilaahay wuxuu uga jeedaa aqoonta maadiga ma aha waxaa looga jeeda aqoonta diiniga weeyaan laakiin haddana tanina kama marna aqoonta maadigu waa shay muhiima in qofku barto hadduu baran waayana waa cad iyo madow weeyaan habeen iyo dharaar siday isku yihiin buu qofkii kala noqonayaa maalan inanka soomaaliga ah aynu ka hadalnay bulshada soomaaliyeed inanka soomaaliga ah markii ay aqoontiisii baabaado uu kaga hadho iskuulka fasalka 7 ama 6 kaga hadho dugsigii dhexe dhamaysan waayo laakiin inankii ay jaarka ahaayeen ay dugsigii xanaanada ka wada bilaabeen ama banhaag ama daycare sida wadamada luqada loo kala yaqaano in ay inankii waxbarashadiisii dhamaysto ay muddo kadib ay kulmaan labadii dhalinyar ahayd inankii soomaaliga markaa uu dareemo xishood aada u badan ninkii ay isku ahaayeen xanaanada iskuulka ay wada dhigan jireen oo shirkad weyn u shaqeynaya oo si qurux badan u labisan oo nolol qurux badan ku nool iyo asagoo weli stiil ah oo ku mashquulsan shirbeeleed iyo aqoon gaaban oonan ma ogtahay intaa qofka uu arkaya aan dhaafsanayn oo ku mashquulsan oo weli oo maxaa la diray iyo goormaan guurnaa iyo arrimo noocaas ku mashquulsan waa xumaanaya waa dareemi karaysaan waa nabar aad u xun oo qof walba binaadana uu la jeclayn ilmihiisa tusaale markaad usoo qaadato ciyaalka Norway badanaa waxbarashadoodu saan idiin sheegay kuma badna aadna uma dhamaystirtaan waxbarashadooda laakiin waxaa jirta mar aan tagay Mareykanka fasax ku tagay bulshada ku nool Mareykanka ciyaalka basa gaar ahaan Soomaalida waxay aad u xiiseeyaan ama ay tiigsanayaan wadyaabisa yani markaad la hadasho dhalinyarta markaad su'aasha ugu horreysay isweydiinaya wax weeyaan yani maxaad jeceshahay inaad noqoto next 5 years buu kornaya shanta sano soo socota maxaad jeceshahay noqoto marka su'aal aad u qurux badan oo qofkii dhiirigelinaysa hataa ku amuuraysa hamad ama moral ama new life warwarun su'aashaasi maxaan u baahanaa inaan noqdo 5 sano kadib wow resource waa beer u beeranayo because cinib buu beeraya imika 5 sano kadib fadhigu ku cunaya laakiin ninka dad team beerto 5 sano kadib team baad cuni yani wax baran weeyda baan u jeedaa marka bulshadana halka ku soo arkay gaar ahaan magaalada Minneapolis aan ku soo arkay waxa ahayd bulshada horumarka ugu dadaalaysa oo isku mashquulsanay kala mashquulsan waxbarasho business wax walba kala mashquulsan haddana waxbarashadu ay u tahay udub dhaxaad مثلا هدي مثلا شرر dhacayaan Soomaaliya arrimo Soomaali looga hadlayo ama sidaan sheegay barnaamijyadii hore aan ku soo qaatay ururada iyo waxyaabaha noocaaya umada u dooda dee ururka shirka ay qabanayo kaliya waxa ka soo qayb galaya 100 qof haday ka soo qaybsho 70 ilaa 80 qof baa aqoon-yahan yani lambarka weyn baan ku sheegay aqoonta marka waxaan xasuusanayaa professor Abdi Ismail Samatar oo bari nagu soo booqday dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo shir loogu qabtay ay u qabatay ardayda jaamacadda Oslo shirka aan kaga qayb galnay laba fariin iyo bulshada Soomaaliyeed faray gaar ahaan dalka Norway ku nool ma fariintiis labada mid adaan ka soo qaatay wuxuu yiri inaad midowdaan oo urur midaysan oo dalkii gudahaba oo dantooda gaar ahaan yani bulshada kobciya aqliyadooda iyo wadaniyada ku kordhiya sameeysan talabaad wuxuu yiri waan sugnahay bulshay hadan Soomaali nahay waa laba shay dal bayna sugaya oo burbursanaa 20 sanadood marka dalkaasina weyn ay 7ka ama wixii ka weynba laba shay buu baahan yahay buu yiri ama waa aqoon oo ummadda wax ku anfacdo ama waa dhaqaale
wadamaday ku nool yihiin gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ku nool